السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقصد جودة تكجوجتان وافعيدو قناة كسر دو سبسكرايب كسردان نقول عصب طاي واشي كذا إني قرص مرس باتيتو هنا دافين كان بقص في عن التحدر شيء كون كنا أبليكيش كنا وينوصل عدان كنا صور دو فعيدو قناة واشي كذا نوصل وباتيتو وحاو يري faadmo ayaa fuushay geedkii waxa uu yeedhay waraabayaal kale waxay ku tiri soo fuula xadhiga ninkii xadhigaa soo fuula ayaa ay cunaya kadibna gabadhani faadmo maskax ayaa ay ka wadataa sheekadan oo dhanbaba kadibna waraabayaashii ayaa yidhi anaa soo fuulaya kadibna waa xadhiga soo fuulan sidaasi ayaa ay kula jartay faadmo oo fuushan barti geedkii ma soo dhici karto sababtoona ah waxa ku daadaatay ceelka waxa ku daadaatay dhiigii qoysmariska waxa u timid shimbir waxay uga sheekaysay arrinta ku dhacday kadibna waxay ku tiri reerkayagii tag oo igu soo sheega aabbaha iyo hooyada inaan meel cidlaa ku gadoonsanahay oy shimbirtii ayaa taartay kadibna shimbirtii waxa soo raacay aabaheed sidiina ayaa uu aabaheed ugu yimiday faadumo kadibna dhiiggii ayaa u maaray markuu dhiiggii maaray kadibna dhiigga masala dhici karto kadibna soo dhacday dhiig yar oo ku daatay meesha laanta ayaa ay faadmo farta lugta kadibna faadmo sida loogu bixiyay faadmo farlaa sheekadiina siday faadmo kusoo aqliyeysatay waxa soo socota sheekadiinan kale waxaa kaloo jiri jiray afar naagood oo ku noolaa meel iyo aabahood kadibna nin ayaa u yimid ninkanna waa qoris maris kale nin ayaa u yimid waxa uu yidhi waxaan kaa rabaa waxa uu weydiistay gabadhiisa gabar ka mida si uu u guursado odaygiina kama uu diidin babe arrintii waa faaqbaday gabadhii ayaa la siiyey kadibna gabadhii markii ay dhexdaa sii socdaan baa uu ninkii qorigii ismariyey ilaa waxa uu ahaa qori ismarisay kadibna waaba uu cunay gabadhii kadibna reerka ayaa kusoo noqday waxa uu yidhi gabadhaydii ayaa iga xanuunsan ee waxaan rabaa gabadh kaloo aad isiisiin si ay wax igu siisiiso cuntadii waxa ay igu siisiiso kadibna looma diidin waa la siiyo gabadhii ayaa raacday kadibna markii ay gabadhii raacday ay dhexdaasii marayaan ayaa uu qorigiiba ismariyey kadibna gabadhii kale ayaa waa uu cumayba markuu sidaa cunay kabacdi odaygii ayaa u yimid waxa uu yidhi gabadhiina waxaan rabaa gabadh kaloo beerta iga shaqaysa markaana gabadha dul joogo ta kale shaqaynaysa amba ariga ii doonto buu yidhi wuxuu yidhi gabar beerta iga shaqaysa oo dhulka ay caawis kadibna waa u kaxeeyey way ay salaamadeeyeen markii ay dhexdaasi marayeen kadib qorigiibaa uu ismariyey qorismarayskii kabacdina waabaa u cunaybaba ninkani waa nin halistiisa wata kadibna waa uu soo noqday markii afraadan filay waxa uu ku yidhi waxaan rabaa gabadh ciyaalka ayaa haysa gabadhii kalena gabadha ayaa haysa ilmo ayaa ay dhashay reerkani waa ma ogaanayaan lagama diidinba sidoo kale waa laga aqbalay kadibna waaba la siiyey gabadhii markii uu gabadhii ka haysta u dhexda sii marayo waa uu la kacay qorigiibaa ismariyey kadibna uu cunay sidaysi lamida ayaa uu gabadhii akhra u tiray kadibna waa uu soo noqday waxa uu yidhi gabadhii kale ayaa xanuunsanaysa waxaan rabaa gabadh kalkaalisa gabadhan waa gabadh aqli badan aaminaan waxay tiri waan soo fikirayaa isuga anaa raacaye gabadha waa gabadh aqli badan lagamaba diidin babe waa laga yeelayba kadibna waxa ay samaysay waxa isku laaqday midmidee duqus milix waxyaabo kulkulul oo qof markay dhahla iyo liin iyo ay isku dartay kadibna markii waxay isku laaqlaaqday ayaa ay qaadatay kadibna awr baa la siiyey awrkii ayaa ay fuushay gabadhani waa ay fahamsantahay oo waa ay shikaday midmideeda duquskeedii waxay isku dartayna waaba haysataayo wayba sii qaadatayba kadibna awrka ayaa la soo fuulay waxa ku yidhi awrka igana sii waan daalay ana banaanka soconay awrka xadhigga lagu hayee waa ay dhacday kadibna markii ay soo socdeen ay cabaar socdaan buu qorigii ismariyey kadibna waa uu soo jeesay awrkii ayaa daadiyay aamina iyo raxankeedii wixii awrkii waa u baxsaday
kadibna dhuqus ayaa indhaha kaga shubtay aamina kadibna saas ayay ku dhintay sheekadii bartaas